Soomaaliyeed meel kasta dunida kaga sugantii barnabaday waxa la yiri meel aarama libax ka dhaqaaqay oo dacwo soo istaagtay falxumadeedu badana waa sayelkeed Carabiya ajab Afrikaan iyo cid kale waxa isha lagu wada hayaa caleema saarka Xasan Sheekh Maxamuud ee bisha 6 sagaalkeeda wafuud ka soo qayb gali doonta daawo halkaas uu ka muuqan doona iyo dhidib turkuwa hadduu ka maqnaado Afawarqi iyo Abi Ahmed daawo Xasan Sheekh Maxamuud ka kacmale waa Soomaaliya say u baabi'i lahayd waxaana laga yaabaa in loo keeno mooshin degdega oo xilka laga tuuro halkaas ay ka muuqanaysaa shaki male samaad garan midda kale imaaraadkii baa wuxuu yiri mar hadduu meesha ka baxay ninkii Soomaaliya inaan gowraco ii diiday maanta dhanka doona aanu roor safiirkii u deganaa magaalada Muqdisho halku ka booqan lahaa Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu cararay xagga ay gudoomiyaha aqalka sare markuu la soo shiray ayuu isaga ku soo noqday labadooda keeba horeeyo mudan soo madaxweynenimadu inay mudnaato maaha waxay noognahay imaaraadku 210 xildhibaan oo Xasan soo doortay 2 bilyan iyo 10 milyan bay ku bixiyeen min 1 milyan oo dollar oo yiraahdeen mahadsanidin wax fiican baad qabatay waxana waxa la siiyay ra'iisul wasaare Roble badna Axmed Madoobe dhanka doontaaba u roor heesaha raabka ku tumaday maraysa Xasan Sheekh Maxamuud mar hadduu dalkii Soomaaliya qabtay saddex cisho muu joogin markuu lacagta sii gaariyay marka Soomaaliya dhibkeedii horta halkaas inooga muuqdo midda kale imaaraadkii wuxuu kaloo tartan kula jira gadar oo markii hore wadanka horumarka waday midda kale Xasan Sheekh Maxamuud halku socdaalkiisa ka bilaabay hadduu ka dhigi lahaa gobolka Gado dadkaasi way bogsan lahaayeen nin dadka isku wadana waa loo qaadan lahaayo dee xildhibaanadii inta la daadiyay gobolka waa tii laga soo adaadumay qaar kale Kenya laga keenay dhaawicii buu sii kordhiyo intuu booqday meesha la yiraahdo Baydhaba isagoo la gorgortamaya lafta gareenoo leh adiga iyo nin kale la qorqor iyo Ali Goodlaw ra'iisul wasaarahan keeni doono janiyansi ku doonaha noqday hadaad asixin weedan badaan idinku kicinaya waynu eegi doonaa bal inuu ku kiciyeen kale ra'iisul wasaaruhu keeni doonaana waa ku nooceeyada waa ku aan isaga iska waabinay hadii kale raggi geesiyada saddex ra'iisul wasaaruhu Xasan soo maray maxaad u malaynaysaa dibka oo kordhiyo mooyaane wanaag horta kordhin maayo adigu haddii aad xabiibi malaayiin ka tirsan tahay cudud baad ku tirsan tahay sharaf baad ku tirsan tahay horta taalasan haddii loo baahdo cudud dhaqaale hawadiiba lacag bay ka dhigeen markaas ay ku waasheen abaara jira abaaruhu markii lacagtu dadka jeebkooda ku jirta ma jiraan laakiin marka la yiri madaxweynaha iyagii baan u qabanaynaa maxaan ku yiraahdaa ay aqal wanaagsan u dhisaynaa de marka abaara jira xaasidiintu way badan yihiin oo la idinku fahmaya midda kale aqalka madaxweynaha halka laga dhisi doona de meel caasimada maayle halku isagu ka dhistaa caasimad noqonaysa ama waa Garbaharey ama waa Dhuusamareeb ama waa Cabudwaaq warku waa cad yahay midda kale waxa weeye haddii Soomaali isaga wada jeclaatay oo hadday siyaasad noqotana isaga ku taageereen hadday dhaqaale noqotana isaga ku taageereen maxay danaga muraara dilaaci dahab idin gudoonsiiyay oo dhaqaalihi yahay walba idinka haystee wixii bay idinka ku haray iimaanku isku jalisa oo dharga Soomaaliya garan anagu reer xabiibi malaayiin madaxa nafuran bay ka dhigantay marna ma cadhoono xukunkiina si qurux badan waa nagi wareejinay Soomaaliya garanay marka wuxuu yiri ninkii nacasli tamaahi la tagalibtiise iyo laba wajiilaha hadba gees roore nacasli tamaahi la tagalibtiise iyo laba wajiilaha hadba gees leexi iyo laba wajiilaha hadba gees leexi ودناهاي لك دماي والله شديدي ودناهاي لك دماي مدللينايون دمبركي سلاعي مدللينايون دمبركي سلاعي anigu ba udumay
liscaashaqa aniguba udumaaye abna laba liscaashaqa halkan waxaan fariin uga dirayaan ku salaamayaa maamo qaan u ahay qiimo badan inantayda qiimaha badan Mrs. Wall go'aan baad leedahay qofka go'aan kale waa jeclahay waa ku salaamay maamo kuwadkay halka